muqdisho waxaa lagu qabtay kulanka maareeyaasha garoomada diyaaradaha Soomaaliya iyo tababarka amniga garoomada diyaaradaha. Madashan sidoo kale goobjoog waxaa ahaa maareeyaasha garoomada Soomaaliyeed ee gobolada dalka ku-xigeenadooda, iyadoona gogashan uu dhigay maareey ku-xigeenka hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ahna agaasimaha garoomada. Mas'uuliyiintii ka kala socotay labada dhinac isbarasho iyo isxog wareysi ay sameeyeen kadib kulanka waxaa daafuray wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada Cabdikariin Cabdi Xaydar waxa uu sidoo kale ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Dhammaantiin agaasimayaasha sawirtihiin muqdisho iyo koonfur galbeed iyo meelo kala dhacayo Puntland agaasimayaasha Soomaaliyeed tihiin soo dhawaada insha Allah aan wada faa'iideysano aan wax kala barano aniga wasiirku xogaa baarlamaanka shalay waa ogeeyeen xogaa hawlaha iska kacsan marka arrimo siyaasadeed gal rabnaa marka haddii aan xogaa idin goyno nooc daara hawsha wada ku matala laakiin waa in la joognaa waan idin imaanaynaa waan in la xiriirnaa shirka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkiina si guud ayuu nagu furay. Cabdiwali Ibrahim Garyare waa maareey ku-xigeenka hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ahna agaasimaha garoomada dhankiisa waxa uu sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulankan iyo sababta ka dambeysay inuu gogashan dhigo. Sidaad la socoteen ujeedada kulankani aan kala hayn wuxuu ahaa mid aan soo bilownay markii ugu horeysay aan xafiiska imid aan ku baaqay inaan qaban doono ujeedkiisuna ahaa inaan abuurno isku xir iyo xiriir wada shaqeyn oo dhex mara madaxda maareeyaasha eeraboorada dalka Soomaaliya anagoo ujeedkeenu uu yahay inaan ka soo dhalaalno oo aan shaqada naloo igmaday daadajino oo aan u fududeyno madaxda maareeyaasha eeraboorada dalka Soomaaliyeed sidii ay wada shaqeyn dhow ula yeelan lahaayeen hay'adda duulista iyo wasaaradda duulista hawada Soomaaliyeed labadaba waanan ku faraxsanahay in markii ugu horeysay shaqadii koowaad aan qabanay inay noqoto wada tashi sababtoo ah hawl ma bilaabi kartid adigoo aan wareysan dadkii xogogaalka u ahaa ama ehelku u ahaa shaqadaasi. maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan ayaa sheegay hawsha qaranka ay u hayaan inay tahay mid adag waliba taxaddar badan u baahan waxa uu xusay muhiimadu inay tahay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhaxaysa. marka workshopkan wuxuu muhiim u yahay Soomaalida gudbi doonta oo caalamka gudbay ka mid noqon doonta diiwaan geli karta diyuurad maaragtay laysan bixin karta garoomada dalka dhan oo idinku madashaan garoon haysta shahaadada garoomada ku shaqeeyaan oo hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay bixiso oo sharcigan waajib ka dhigayo garoon haysta kuma jiro waxaan rabnaa inay maanta gogol xaar u noqoto in garoomada shahaadadaas ay helaan lalana xisaabtamo waxa shuruucda caalamiga ay ku waajibinayaan na ka soo bixi kara waxaan kaloo rabnaa fursadan in uga faa'iideysano teamka aviation security oo National Civil Aviation Security Program sharciga la yiraahdo amestray oo implementationkiisa ama fulintiisa u gudbaya in fursadan ay u isticmaalaan in wixii Soomaaliya loo develop gareeyay sharcigaas ay idila wadaagaan idila qaybsadaan fikradiina aad ku darsataan insha Allah taala idinkuna aad garoomadiina ku dabaqdaan. Bashiir Macalin Cali agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada isna dhankiisa goobta ayuu ka hadlay. waxaan rabnaa maareeyaasha eeraboorada isku xiran oo isku duuban kuna xiran maareeyihii guud ee eeraboorada maamulaya ku xiran oo hal qof isku ah oo aqoonta iyo cilmiga iyo talada kala qaato wax walba kala qaato waxaan rabnaa maareeyaasha eeraboorada sidaan oo kale ayagan inay abaabulaan is-aqoon wadaarsi workshop inay sameeyaan dhaxdooda ay samaystaan yacni qof walba meesha uu joogo markuu ka shaqeynayo wax ka jira saxda ah waa ogyahay midka kale walaalkiisa caawin karo midka airportkan jooga xamar kan baydhabo joogo ayaa wuxuu ka caawin karaa waxyaabaha qaar kan jooga garawana kan jooga maxaa la yiraahdaa xamar ayaa caawin karo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa tilmaamay waqtigan inay haboon tahay in la kala saaro aragtida siyaasadeed ee la isku khilaafsan yahay iyo hawsha qaranka loo hayo. Seminaarka inoo furmaya maanta inaan aad uga faa'iideysano in muxuu ahaayay aynu barano shuruucda leenooga baahay inaan barano in muxuu ahaayay aynu eeraboorradeena si habsami leh aynu uga shaqeyno waxaan rajaynayaa insha Allah taala waqti aan fogeen in eeraboorradu inoo noqon doonaan eeraboorro caalamiya in muxuu ahaayay ranwayada la hagaajin doono oo ranwayo qurux badan la dhisi doono waxaasoo dhan dawladdu waa qorsheynaysaa waana ku maqan tahay laakiin waxaa idinka rabaa idinka dulqaad iyo sabir ayaa idinka rabaa waana mahadsantiin. Faadumo Cabduqaadir raadiyo ITV-ga Dalsan.
kani waa Premier Wallet waa habka ugu fudud ugu casrisan uguna ammaansan ee aad wax ku iibsan karto Premier Wallet fududeeyaha nolosha